waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si ballaaran looga fuliyay olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada Burco waxaana horkacay ololahan nadaafadeed gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Burco Ustaad Maxamed Muraad xogayaha fulinta dawladda hoose Burco mudane Cismaan Sheekh waxaana sidoo kale ka qayb qaadanayay ololahan nadaafadeed agaasimaha arrimaha samafalka madaxtooyada Soomaaliland Marwa Aamine Aga gudoomiyaha gobolka Togdheer ee wasaaradda waxbarashada mudane Cabdi Axmed hay'adda Caritas ururada bulshada shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Burco xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Burco gaadiidka dawladda hoose waxaana ugu horeyntiiba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane Xamarji waxaana ka warbixiyay maanta xafiisa oo amaalintii ololaha nadaafadda caanka ku ahay Burco runtii waxaa leeyahay dadweynaheeda madaxdeeda iyo madaxda qaranka halkan ula joogtay kuwa degmada dhammaan waa salaamaya waxaan ku salaamaysaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh intaa ka bacdi waxaan leeyahay runtii marka la eego Burco waa meel walba xashiishkeeda dhanka kalena halkaasi waxaa ka hadlay maayarka gobolka Togdheer Ustaad Maxamed Muraan waxaana ugu baaqay bulshada gobolka Togdheer inay ka qayb qaataan wax kasta oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada Burco waxaanu yidhi qashin cusub oo imka la soo dhigo isaga maalin walba waa qaadnaa waa qashinka raaga ee meelaha baraha ah maartay ku raagay ee markaa ku gaboobay baan maalin walba insha Allah imka waxay muuqataa in badan ilaa 80% noqon in qashinkii dimaaga magaalada ka saaray awal degmo ahaan anagunba gabadhiina halkaasi waxa ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Sheekh nadaafadda oo ilaa barasaabkii maayarkii madaxdii hay'adaha laamaha dawladda oo dhan ururadii salaadiintii madaxtooyada lafta isku soo wada xooriya ololahan nadaafadeed ayaan ahayn kuwii ugu horeeyay madaxda gobolka Togdheer ay fuliyaan balse waxa caado ah madaxda dawladda hoose iyo xildhibaanaduba inay khamiis kasta fuliyaan ololahan nadaafadeed oo caynkan oo kaleeto waa Khalid Bakayle shabakada caalamiga ee Aynaba News magaalada